oo shan baa adiga tur qoriga yiraahdeen xabado badan ka dhacay sakasan uma dilin caawin uma dilin maalin uma dilin inay qalbigeyga kama soo goyn marka waa mataanay maxaa laga wadaa marka allah ha u naxariistay taliyihii guutada 26aad qaybta 27aad gaashaan la dhexe cabdiraxmaan salaad xujaale geesigii dagaalka waxa uu ku caanahaa geesinimo nafhurid iyo go'aan adag inta lagu gudu jiro xaaladda dagaal ee halganka ciribtirka khawaarijta iyo haliyay aan kala labayn difaaca dalkiisa dadkiisa iyo calankiisa waxa ay geeridu u timid maalin uu fagaaro u taagnaa nafhuridda qaranka isagoona ku baxay xabad qori dhishiika ka soo baxday uuna riday dable xoogga cabdullaahi xasan axmed malag oo ka mid ahaa istaafkiisa gaarka ah falkan ayaana deegaanka ceel hareeriya degmada Moqokori ka dhacay 17kii bishii shanaad 2025 eedeysane malag oo aan diidanayn inuu dilkan geystay ayaa ku dooday qoriga dhishiika ah inuu ka mataaneeyay isagoo ku mashquulsan cilad bixintiisana ay ka dhacday xabadda tani kasuma dilin aye kamayga haday qoro boobaha leesan wahay oo iga mataaneeyay uga mataanay tortorkuna ay jiid mididi ama kuna ay xil mididi qafiska siliska iyo qoro kala qaadan way qaadin gadaala u soo baxnay xabad eberjibiso oo cadawga hal ugu timid gadaala u soo baxnay ciidamo dhaawacmay oo baabuurka fuulo tale koox iyo hal askari labada askari baabuurka kor dhaawacan labada askari tale koox siliska ka furfuro taliyaha u taagay taliyaha dhinaca u qabtay dhinaca askari qabtay luguna askari kala iga qabtay ambalaasta ay daba saarneed ambalaasta daba saarnaan balaastu saaray askariga kale taa qabtay hadana taliyaha iga laba qabtay markaas qorowga haleysay taliyaha dhaa qoro dhuunta ma laga haastaa mise gudaha laga haastaa oo dhaa gudaha laga haastaa oo dhaa qoro furfuro dhaa gadaashiid marka baabuurka gadaashiisu roga oo ambalaasta gadaashiisa qoriga anoo ku rogan qorigii gudihiisa ku jiro qafiskii qaaday qafisku uu qaadmay markii dambe soo caraaf oo qafisku uu qaadmay saas markuu uu qaaday tortorka iyo xabadda isla tagay markii dhacdaan uu mugaas faraha ka deemay saasta uu soo istaagay oo kor uu istaagay xabad markii dhacdayna taliyo horteed yaa la arkay waa degay ani askari kale taagar qabanay mugaa meeshii taliyaha asnafta ka baxtay taliyaha baabuurkii xambad oo qoriga fakada xambadiisa la saaray wala la orday anna seekaawo gada ka dambeeya soo fooltay seekasan uma dilin caawin uma dilin maalin uma dilin inay qalbigeyga kama soo goyn niyadeedana kama soo goyn dil waa jeclay asiga iyo talo unu bisaan hoostay talo istaafis qaaska ana gaandhirgiis qaaska maxay ahayd gaandhirgiis qaaska baabuurku uu sugu fulo oo qaaska urida loogu gooy jiray gaariga oo dhishiikaha oo ka dhacay gaariga oo asaga fuul oo saaray miya seekaabuga iyo dhishiikaha soo wada jiray mar walba ka rabo fuul jiray laakiin dhishiikaha waxa loo gooy jiray irid seekaabuna banaanka ku istaagi jiray markaas xabadda ku dhacayso intuu ka degay markaas soo gurmanay wuxuu fuul baabuurkana oo xabad ku fikanidu fuul dhishiiko fuul dhishiiko saaray meel dhax sokeeto risaastii lagu qoybinayo uga tagnay talo unugiyo ciidan kale ku ramay anana afar askari ay raacay shantayna baabuur ay raacnay seekaaw waa haleesnay mar dhacayna taliyuhu ag joogay suuga iyo saddex baabuur oo kaleeto aanu ku jiro waa dagaaltanay xabadii hortayna qayootay markii qayootay gadaal u soo baxnay nako gadaal u soo baxnay maasi taliyaha xabad ka bilaabatay taliyaha markii xabad ka bilaabatay horay baabuurtu ma baqa karin meena laga cabsanaay xabad qodi ka dhacayday xitaa u soo baqanay meeshaas labada askari ga dhaawacmeen labada askari baabuurka korkiis fuulo xabad kaliya mugaas dhaawacmay taliyaha laga la soo orday nooho hore loo soo qaad oo cadawga laga soo carar ka daba keen taliya labada askari dhaawacay taliyaha waxaan soo dejiyay dhahay saas muga u dejiyay asuuna uga qabtay labada askari uga qabtay oo qoroga u sheegay haleysay dhahay ana qoro gudiis ku jiro farfarayna qoruus ag maran mi hela markuu xabadu dhacday iyo taliyo hor yaala isha saartay qoriga shiika markuu ugu horeyso halaabmay ma dhowr mar way uga mataanay laakiin uga mataanayo mataanada waa kala bax dagaalada saas way yeeli waa kala bax waa badan qoro booba waa dhowr mar aduun suuq noqday haduu seekaaw noqday haduu shiika noqday haduu beekay noqdo qoro booba dhan waa mataanay dii barees loo qabto marka xabadda dhabarjiistaha ugu bilaabatay
bareesa u qabtay bareestaas unkaasa ku dagaalay oo uu iga mataanay marka qafiskiina way qaadnu didi ama kuna istakaatay toortoorkuna istakaatay qafiska koreeto siliskii qorog dadana istakaatay marka waa mataanay maxaa laga wadaa marka laba xabadood oo isla qaadana hal mar xafiiska xiraalinta ciidamada oo galkan hor keenay maxkamadda darajada koowaad ayaa dilkan u arkay inuu yahay mid kas ah maadaama eedaysana uu faham badan ka haystay isticmaalka hubka taliyaha wuxuu awooday askarigu in qoriga uu kor u qaado hadduu ciladaysan waxay ahaaday qorigu wuxuu leeyahay marxalado fara badan wuxuu leeyahay in ammaankiisa la furo in xabad la raacsiiyo in lagu aadiyo meel target ah kabacdi la rido ayuu u baahan yahay waxaasoo dhan oo marxaladuhu maraa sidoo kale qoriga dhashiikaha wuxuu qoryaha kale ugu duwan yahay waxa uu leeyahay wax la yiraahdo xanib haddii kor loo qaado oo la xanibo halkii lagu aadiyay ka dhaqaaqi maayo iyo haddii dhinac loo jeediyo taa waxa u dheer waxa waaye waxay ahayd marka eedaysanaha hadduu qorigu ka ciladaysan yahay in taliyaha guutada uu ka wareejiyo ama uu kor u qaado ama gees kale uu ku jeediyo uu xanibo ay ahayd uu xanib saaro markaas uu farsameeyo taasi marka waxay ku tusaysaa inuusan ka taxadirin qoriga uu gacanta ku hayay asigoo ka leexin karay taliyaha guutada maragyo goobjoog ka ahaa dhacdadan kana mid ahaa istaafka taliyaha dhintay ayuu garsoorku wax ka weydiiyey sida dilkan uu dhacay aniga waxaan joogay markaas waxaan joognay oo dhacdada markay ay dhacaysa El Hareeri iyo Tawakal Dhaxtaalka hore ka dhacdo horta ma fahmino markaas El Hareeri aan ka soo noqonaa rasaaskeena Tawakal afkiisa sukaan rasaaskeena ka soo laaban rasaas markaan geynay gaadiidka markaas Tawakal iyo meesha la yiraahdo El Hareeri Dhaxtaalka hore oo joogay juqay aad anaa wadada baawarta gaadiidka ma ka bixi karin gaadiidka gadaal u soo baxa taliyahana markaas gaari oo xildhibaanka leeyahay oo xildhibaanka xawaadle uu leeyahay oo cunug ma dagaal leeyahay oo wadi soo saar ma fahmin anigu soo bistaayna markaas gaadiid kale ka daba imaanay El Hareeri afkiisu meel dhaawac la keenaya imaanay markaa imaanay baawartan meeshaan banaan waaye ay ka difaaca kala qaataan ka dagaalamaan u dhahay taaloo la rooraa ma fahmino markii oo sidaas oo dhahay wadada dhex taagnaa u dhahay baawarta inuu ku dhaafin isna wadada dhinaca u taagnaa ma fahmino gareedo diray markaas baawarkan dhacdada ay hadda dib ka dhici doono qorigan oo xabadan kufka doonto ay baawarta ugu soo reeyay dhaawac oo waday baawartan dagaal gasho dhahay daalolo dhaawaca saarnaa lahay halaga dejiyo dhahay ambalaas taala saaran fahmino ambalaasti ninkii loo qaada loo dejiyay ambalaasti markii loo geeyay ninkan dhaawac ninkan ambalaasti waa buuxda hal ma fahmino waa la soo celiyay markii la soo celiyay oo gaariga loo soo celiyay gaariga taliyahana wuxuu taagnay gaariga dabadiisa ma fahmino saddex tilaab amal oo jira ma fahmino wadada geeska roona uu taagnay taliyaha gaarigana gaashiisa ku aadanay cadceed xagga ro gaariga uu uga jira ma fahanta cadceed xagga markuu uga jira gaariga adiga taliyaha markaas ciidanka dhan markaas noo yimideen ay 30 qofood oo dhex taagnay ma fahanta 15 qofood waa ka sugaysay 15 qofood waa ka dhinaca soo gaariga soo jirtay uu soo dhaas ma fahmino laata aniga xabada anna wadada gaariga dabadiisa aan taagnay laakiin wadada dhex taagnay aniga markada xabadii bugti iyo taliyo wifi aan ka war helaba aniga ma fahmino gaariga gadaal amal uga aadanay anna wadada dhex taagnay markaas gaariga inta uu iimaan oo wuxuu dhaa baawarta inuu ku dhaafo xil gaadiidka ma fahmino gaadiidka markuu sida dhaay gaarigan dhaawac wada u bandhiyay ma fahmino gaariga markuu aan u bandhiyay oo dhaafay ala celiyay dhaawac laga soo dejiyay gaariga dhaawac marka ambalaas loo qaado ambalaas ka buuxda la dhaane oo laga soo celiyay ambalaas inta loo keenay oo ninkii la soo wado dhacdana dhacdaba maxay dhacda xabadana dhacdaba ninkii ambalaas markii laga soo celiyo ambalaas ka buuxda loo gaarigan loo soo celiyay gaariga intaan loo keenin oo ninkii soo ninkii aan soo saarin xabadana dhacdaba xabadii xabada Cabdullaahi hadda qoriga hayay Cabdullaahina horta macnaha qofka bilaadanka qalubtiisa maana ka waramaano
Abdullaahi qoriga xabada iga gooneedu dhaam faant qoriga xabada ku beerki markaan furayno waa dhacdo dhaam faamino beerki markaan furay xabada ay dhacdana wuxuu dhahay xabada taliye ku dhacdo qoriga ma halaabi jiray saas oo kale xabad u taagnaa jirtay qoriga ma auna lisnayn qoriga marka hore nin mareere la yiraahdo joogaabe ku dagaalamay marka hore xabada ku ahaye qoriga markuu ka deganaayo fayaaba ma fahmin laakiin aniga qoriga kama aan warramo inuu macnaha markaas xabad ay ku go'aantay in kalanto ma kala sheegi karo ilaaladu ma ka mid tahay oo taliyaha la socotay taliyaha staffkan ka mid ah staffka taliyaha ka mid ah Cabdullaahi staffka taliyaha ka mid ah gaandiriga oo baayba soo baxnay meel yiraahdo mubaxa imaan wax ku gaa imaan rada qaadnay waa baxnay gaadiyaasha waa ka tagnay mubaxa tagnay howlka waan meeshii waa soo buriyay nimankii meeshii jooga waa ka tagay hal hariiriya xabad ka bilaabatay hal hariiriga xabad ka bilaabatay gurmud ahaan oo soo baxnay 8 saac saacad u gaahad waa soo baxnay dagaalkii ay imaan hal hariiri dagaalkii saa ugu jirnay marka dagaalkii saa ugu jirnay ninkan oo taliyahadii xabad ku dhufana baawrka isla fuulnay marka baawrka isla fuulnay ninkan marka aniga caawiya oo ah maxaa caawi ka tahay dishiika qoriga saawu mid qoriga la fuulay cambeeya oo ah dagaalkiisa meesha ku dagaaltanay marka meesha ku dagaaltanay dagaalkiisa uu socdo taqaana ee gadaal xabad ka bilaabatay taliyay wixii dhamaanay waa soo noqdeen gadaal mugi xabad ka bilaabatay aniga baawrka soo kaxeyn xabadii gadaal ka dhacayday jidgooya gadaal naga qabsatay marka baawrkii waa soo kaxaynay dib u soo baxnay dib uga soo baxnay meeshii dibta u soo baxnay taliyuhu meel jooga u maanay goobjoogii meeshii waxa ka dhacayeen xabada ku dhacayday taliyaha meeshii baawrkaas lagu soo baakimay taliyaha meeshii loo yimid taliyaha mugu meeshii yimid taana marka xabadan ninkan qoriga baawrka meesha lagu soo baakimay mogta qoriga baawrka Cabdullaahi gacan ku dhiglaa fuul meesha lagu soo baakimay anigana gadaala ka taagan nin baawrka taaniga soo baxshay oo baawr oo qabiilka leh soo bixinay baawrka muga soo bixinay meesha keenay mogtahay oo dagaalka jidgooyada ka soo baxnay barxadda keenay meel oo la isku sugaa wixii dhaawac ahaa la dhiibay nin dhaawacani meel ku soo lugta ka soo duubay muga ka soo tagay wixii xukuma u dhiibay muga ka soo tagay lugta ka soo furay meeshii baawrkiga soo aaday Cabdullaahi oo ku qorana muga soo aaday Cabdullaahi inta soo socdo ninkan qoriga soo fartayna oo wax xabada iga gooday dhaxu ku soo yiri mogta xabada iga gooday asigee dhax muga soo socona oo yiri xabada qoriga iga gooday soo yoolana soo fuulay yoolkii muga soo fuulay ninka ku dagaaltay qoriga markuu qoriga ku dagaaltamay waa soo baxnay asiga afkiisa ku yiri qoriga xabada iga gooday mugu yiri qoriga afkiisa xabada ku gooday muga ka maqalnin aniga waa la dijiyay mid tali koox noo hay dijiyay markii tali koox noo hay way dijiyay nimankan soo bixi yiri adaa qori ka watee indoo dhaawacoon ahaa oo ciidanka xukumay waa soo baxaniga baawrkii la heray mogta gaarigii muga la heray waa soo baxay Cabdullaahi waa la soo waday oo taliyaha qoriga ku dhufana xabada ku dhacayday Cabdullaahi waa la soo waday meel lagu soo baakimay aniga markaa la socdaa baawr kale taa soo bixiyay baawrkaasna shirka ka fuulaa darawalkii gacantii lugtiisa duubiha soo bixinay goobtii marka oo dhaawacii wixii dhamaa lagu dhiibay imaan meeshii muga imaanay marka ninkii markaa dhaawacii wixii soo bixinay taliyahana hay taagan xaggaas oo kale taagan hortayda gaariyaasha waxa dhan nin dhaawac oo ciidankaayna ka tirsan baawrka laga soo dijiyo baawr hala saaray anigan gadaala soo socdaane markaas soo baxay ninkii markaa la dijiyay oo baawrka la saaray liigaan balasta goobtii mid aniga inta lugti soo furay inta soo socdo meeshii soo gaarin ninkan qoriga ku mashquulsan markuu qoriga asoo ku mashquulsan taliyihiina meesha rogo ay xabada dhacday xabadii faniinkeed ciid mugu ku dhacday faniinkeedii uu jeeday meeshii muga ay mid taliyo ciid yaala arkay ninkan gaariga ku soo degay madaxo gacanaha saartay meeshuu istaagay markan ku ogaay marka sidaas ka horna ku ogaay qoriga inay xabad igu go'an taasi ii sheegay afkiis noogu sheegay
cumar xabad ayaga goodo yiri markuu saas yirina aniga gaariga laga dijiyo qoriga booshkiga qabsatay dagaalka gadaalka aaday adiga gandhibiga caawiye ahayd ma ha ninkan caawiye oo hayno qori xabadaha ku go'i jireen miya qoriga xabad kuma go'i jirin laakiin ninkan markuu dagaalkii jidgooyadii muga soo aaday jidkii moogta xabad dagaal hore xabad ka ridayeen aniga hore ka dagaaltamina soo baxnay muga soo baxnay soo bixitaankii gadaal xabad ka bilaabatay soo bixina qorigii ninkan markuu u soo dhiibay qoriga asaa soo qabsaday ninkan gacan ku dhigla qoriga soo qabsaday waa soo baxay anigu soo socon sida anigu socon xabadda iyada socoto ku soo dhaxdhacnay jidkii jidgooyada soo dhaxgalnay goobta oo dhaawacyada lagu kala wareejinay intaan la imaan ka hor ma ku sheegay in ay xabad ku go'day qoriga markii soo dhaxmuga soo socon ma taqaana oo qorigina qabto dhinaca inta uu riday qoriga oo shan ba adiga tur qoriga yiraahday xabado badan ka dhacay xabadii badan uu ku dhaco ninkan yiri qoriga xabad ay go'o mana dhicin qorigii markii ka bacdi ma dhicin ba sidaas uu yeelay aniga baawrkii dagay qoriga nina dhaawacay baawrka soo saaray beekaanka ka furay beekaanka wadar mar ridaaday marka kale oo xabada ay ka dhacayso xabada taliyaha dishi ku dhac ka dhacayso markaas ninka muxuu sameeyay ninkana qoriga ku mashquulsanaa ninkana qoriga shilislaan oo ahay sanduuqlaan shiliska bisa ku xiran qorigana shiliska oo sanduuqa ku xiran mogtahay geedan xanibka mogta caadi iskaga dhicida waa iska warigay marka xanibkii sidoo iskaga wareegaaday ninkan qoriga soo la xaqoosanay xabada dhacday markii xabadii saastii u dhacaydana qorigii kor u faniinaba madaxiisi qorigii kor u soo faniin ninkan marka gaariga waa ka soo degay marka adiga fiirisay qoriga qor halaysan oo ahamiya uu xarbiyo qoriga waa halaysan asaab gadaali ku soo sheegay qoriga waa igu halaysan yahay anako badan oo baawr fuulno kuma xireen miya shiliski iyo sanduuqi kuma xireen shiliska bisa ku xirna hol fududeen oo ayno shiliska sanduuqa non laga magaariba shilisayaasha ka soo wada baxsan meeqa xabada ka dhacay qoriga hal baaloto bisa ka dhacday baaloto kale ma qaado qoriga mogtahay meel dadalata u leeyahay kubeerkaas soo furnayno qoriga inuu soo jiido lama rabo xabada soo ma jiido qoriga halkii baaloto bisa ka dhacday markii goobta laga soo tagaanaaba qoriga soo fuulayba ada soo furay oo taliyaha miidkiisa markaa soo saarnay baawurka waa soo baxnay baawurkii qorigaas ka fiirshaday ciidanka ka fiiriyay qoriga hal xabo kale taa baaloto ma jiro si baalotadii ku dhacday shiliskana ku xirnaa marka saas oo fiirnay ma ka dareed markii uu halaysan yahay qoriga marka fiirsay markaas qoriga nadiif oo markaas laakiin halka baaloto aniga xabad waa iga mataanid buura aniga qoriga daa fiir la caadi ah mogti waa iga mataanid dafkiisa ka maqlay siduu soo baxay mogta baawrkii meel lagu soo baakimay leeshimuga lagu soo baakimay ninkan waa fartiisay qorigiisa wax ma ka sameynaa ma sameeysanay isla markiina xabadu waa dhacday baraha galkan ugu wakiilka hoggaanka sahanka iyo wardoonka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa isna ka warbixiyay natiijada baarista guddiga Soomaaliyaal marka kiiskan si dhab ah u baaray marka cadeymo ka qornay markhaatiyaashii marka aragnay marxuumka midkiisii marka aragnay shahaadada dhimashada waxay caddaatay inuu dhacay dambigaas uu galay eedeysane waxay caddaatay qodobka 445 maxkamadda maasada ku-xigeenka xeralyaha guud ee ciidamada dhamme xasan tarsan ayaa codsaday in dil toogasho lagu xukumo eedeysane malag taliyihii guutada marxuum X gaashaan la dhexe Cabdiraxmaan Salaad Xujaale wuxuu ahaa sargaal howlkar ah oo geesi ah isla markaana howlgallada dalka ka socdo ee cadawga lagu wajahayo laf dhabar u ah ayuu ahaa gaar ahaan waxa uu taliska u qaabilsanaa aagaas bari ee gobolka Hiiraan dagaalada ka socdo ayuu hogaaminayay iyo guutadiisu ka howlgalaysay sidoo kale wuxuu laf dhabar u ahaa uu isku xirayay ciidanka deegaanka ee halkaas ka howlgalayo abaabulkooda iyo isku dubridkooda iyo howlgelintooda ayuu wuxuu ahaa muhiim eedeysanuhu dilkan wuxuu u geystay si ka fiirsasho la'aan ah oo kas ah markee wuxuu yaqaanaa marxaladaha hubka ayuu yaqaanaa wala soo tababaray AK47 ku soo tababartay BKM ku yaqaanaa 7 ku yaqaanaa dhishikaha ayuu yaqaanaa wuxuu yaqaanaa habka hubkaas oo dhan loo maamulo ayuu fahamsay marka asigoo heli karay inuu qorigan kor ugu dalaco haduu farsameynayo ayuu sargalka ku aadiyay sidaas ayeen hal baalood ugu dhacay sidoo kale waxaan ogaanay in kooxaha argagixisada ah ee al-shabaab
ay adeegsanayaan ereyo waxba kama jiraan ah oo marin habaabin ah ayagoo ujeedkoodu uu yahay in ay isku dhuftaan shaki kala geliyaan ciidanka iyo saraakiisha xukumayso waxay aad u boonboonayeen dilka Allah u naxariistay Cabdiraxmaan Salaad Xujaale boonboonintaas marka ayaga waxay muhiimad ugu jirtaa waxa waaye ciidanka ka dagaalamaya halka iyo saraakiisha hogaaminaysa in shakil kala dhaxgeliyo si difaacaasi uu jab marka hadaladooda totally waxa waaye waxba kama jiraan waa barbagan caadi ah بعدما soo bandhignay maxkamadda hor keenay maragyo maxkamaddu dhageysatay aan soo bandhignay dib u muujinta waxaan codsanaynaa oo codsigan ugu dambeeyahay eedeysanaha in lagu qaado aayaadka iyo qodobada aan ku soo eedeyn loogana naxariisan maxkamaddu imaasanta abukaata caarif ayaa isna dalbaday in maxkamadda ay u aqoonsato dilkan inuu kam yahay muwakkilkaygu qiraal buu yahay dhimashada laakiin dil kas ah inuusan qiraal u ahayn maxkamadda wuu sheegay wuu ka sheegay markii aan waraystay wuxuu ii sheegay qoriga markii lagu dagaalamayo xabadda ka soo goostay inuu taliyuhu u sheegay uu la wadaagay taliyuhuna uu yidhi qoriga fufur oo xabadda ka bixi qadaha rabbi markii uu dhacahayo taxadarka hadda xafiiska xiraarinta u sheegayo ma imaanayo markii qalda jiro ila taxadaro dagaal laga soo baxay inuu kor qoriga u xiro iyo inuu qoriga haddii alla ku idmaayo qojaynta iyo qoriga gaabisa xataa inuu taliya xagga ka maray inkaa midna xog kama u haynin qoriga furfuristiisa koofaha uu qaaday iyo katorotoriya xabadda hore u raacday leebdhicii la xabaddu kaanahay u taalle leebka un baa dhacay bas leebkii awal fakan waayaa fakaday saas xabaddu ku qaraxday taliyadu ku dhacday ku talagal ma ahayn xafiiska xiraarintu marka eedda ku soo eedeena 434 dil bareer ah meesha asaalata ma jiro qiraal lama aha muwakkilka uma aha markhaatiyaalna uma keenin wax hadda maangal ah oo keeni kara oo xataa wax ka dhaxeeyo oo dhib ana ma jirin isaga taliyiisa isku ahayn dhib ma jirin xabadaas marka wax xabad dhacday oo si kam ah ku dhacday inay maxkamaddu u aqoonsato qodobka 445 maxkamadduna ay waafaqdo qodobka 4aad faqradiisa koowaad xarafka inay maxkamaddu fiiriso oo duruufaha fududeeya dembiga ay u fiiriso maadaama ay dhimasho dhacday xukunna ka imaan karo in xukunkaas maxkamaddu ay ka fududeyso maadaama mag lagu yeelanayo 445 in maxkamaddu ku xukunto 434 ay ku weydo maxkamadduna waa maasanta maxkamaddu maxaa ka codsanay wada wasana inay xorriyada siido gaashaan sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaana ugu dambeyn fadhigan soo xiray cabdi fataax khiyaar warbaahinta qaranka muqdisho